بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada qoys bile iyo mar kale barnaamijkeennii xirfadda xulashada lamaana waxaan iska soo sheekeynay xulashadii nabiga ka timid ilaa iyo ambiyadii ka dambeeyay ay wax u soo xulinayeen waxaan soo gaarnay xulashadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo wixii diintu ay ku samaysay waad ogtihiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku saleeyay xulashada meel aad iyo aad muhiim u ah 4 shay ayuu xadiiskiisa ku sheegay oo ahayd ku doorta gabdhaha diinta quruxda nasabka iyo maalka 4 shay ee uu nabigu calayhi salaam gabdhaha yiraahdo lagu doorto haddana wuxuu sii ishaaray diinta sababtuna waxa weeye qofku inuu diin leeyahay waxa ay ka ilaalin kartaa ama xayndaab ugu noqon kartaa dhammaan waxyaabaha ka hadlayno oo dhan inuusan ku dhicinayn laannahu qofku markuu caalim yahay ama diin barto waa qof aqoon leh waxa la barto oo bini'aadamku barto waa 2 shay waa aqoon samaawi ah iyo aqoon danawi ah aqoonta samaawiga ah waa qaala Allahu iyo qaala Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam waxa la miduhu ma jiraan waa xaq waa run wax ka wanaagsan oo la bartaana ma jiraan iyada ayaana ku kaamilaysa aqoon dhammaanteed sharaf dhammaanteed cizi dhammaanteed haddii aad ku takhasusto culuum ka mid ah culuumta islaamkana kaba sii fiican dhinacan danawiga ah waa tijaabooyin iyo tacliim la ogaaday waxtarkeeda oo jiilba jiil u gudbiyeen iyaduna qofka waxay ka gudbisaa in uu ka leexdo godadka waaweyn inuu go'aamo fiican qaato inuu mustaqbalka si fiican u design garaysto iyo in uu jihaysto noloshiisa sida ugu wanaagsan oo uu jihaysto xagga dhaqaalaha caafimaadka dhaxgalka bulshada iyo mustaqbalkaba haddaba labada markii la simay waxa isu dhowma kan diiniga ha fiican khaasatan gabdhaha khaasatan wiilasha yani kala reebin diintu waa fura fahamkeeduna waa muhiim sidaa darteed rasuulka calayhi salaam wuxuu yiri diinta gabdhaha ku doorta markii la dhahay diinta gabdhaha ku doorta wiilashu ka maqan yihiin maya kama maqana waa ku jiraan waad ogtihiin maanta wiil iyo gabarba qof aan diin lahayn oo islaam ahayn oo aan qirinin tawxiidka oo aan rasuulka calayhi salaam qirinin qof kale ma aaminayo oo Soomaali ah qof si kasta daalim hadduu yahay oo uu dhibaataysan yahay ma oran kartid muslim ma tihid waa kugu dhimanaya sidaa darteed gabdhuhu kaliya diintu ma ahan ku doorashadu gabdhuhuna wiilashu way eegayaan laakiin gabdhaha maxaa rasuulku ugu fadiyaalay li'annahu sharaftooda iyo cizigooda qiimahooda oo dhan ayay kor u qaadaysaa si khaas ah ayay gabdhaha diintu u bishaa qurux ugu samaysaa u sharaftaa u kaalmaysaa isla markaana valueskeeda iyo qiimkeeda u ilaalisaa sidaa darteed waxa uu leeyahay u doorta ma aha wax sahlan waa in aad ogaataa oo hoos u baartaa macnaha weyn ee ku duwan arrintaas hooyadu waa saldhigga qoyska hadday iyadu diin leedahay oo ay guriga iyadu diin la soo gasho waxay si fudud ugu gudbin kartaa ilmaheeda li'annahu waqti ugu badan bay la qaataa li'annahu waa dugsiga ugu horreeyey li'annahu waa indhihii iyo dhegihii ilmuhu markay jaan qaadaan afka iyo luqadda baray sidaa darteed dugsiga ugu horeeya ilmuhu waa hooyada hadba hooyada fahamkay ka haysta diinta ayaa qoyskaas u ekaadaa haddii odagu uusan ahayn qof ahludiina hooyadu tahay odagu waxay u badan tahay siday maalinba wax ugu sheegayso si uun wax ugu sheegayso caaqidka inuu xaniyo laakiin haddii odaga arrintaa jirto oo gabadhu bilaa diin tahay aad iyo aad bay culays weyn u leedahay gurigaas noloshiisa iyo mustaqbalkiisa dhinaca kale ayay u dhacaysaa sidaa darteed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dooray gabdhaha diinta leh ha lagu dheganaado quruxdii iyo qiimihii gabarnimona ama dumarnimona waxay ku jirtaa diinta laftirkeeda quruxdu yidhi ha lagu doorto ka mid a shuruudaha u doortay waa saxiix quruxdu waa waxa qalbigu jecel yahay indhuhu jecel yihiin qof walba qurux buu jecel yahay iyadana doorashada wuu ku fadilay li'annahu qofku wuxuu rabaa indhihiisu waxay ku qabowsadaan qalbigiisu ku dego muuqaal qurux badan leh
hadal qurux badan leh asna wuu rabaa quruxdaas marka waa physical waxa uu ka hadlayo diintuna waa quruxdii macnawiyaadka ahaa ee ay gabadhu leedahay tii marka isku darsata haddaba buradheeri bay sidataa gabdhaha kale way ka sarreysaa midii laakiin labadaas suu kala simaan ee diinta qaado nasabka ayuu rasuulka sallam ku sheegay gabdhaha in lagu doorto nasabkuna waa meesha gabadhu ay dhasho iyo odayaasheeda aabbaheed iyo waalidkeed waa lagu xulan jiray li'annahu maaha inay dadka Soomaalidu hadda u kala bixiyeen nasab iyo nasab macnaheedu maaha waa dadka dhalay wanaagooda sharaftooda qiimahooda xurmadooda diintooda akhlaaqiyaadkooda gabadha ku fiiri maaha dhinacaan ka eegayna nasabka annaga iyo qofkaanu ma beelaha laga tirada badan yahay ma ahan waa dadka say u nool yihiin nasabkooda iyo quruxdooda iyo maxaan ku yiraahdaa akhlaaqiyaadkooda iyo sharaftooda iyo habka u fakaraan iyo ethics-kooda halka ka raadsan way maalka ku soo haray maalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha gabdhaha rasuulku calaysalaam salaam yiri lagu doorto gabadha xoolo leedahana way ka sii wacan tahay oo way ku dhaqaaleynaysaa inkastoo hadday diin lahayn oo dhaqaale leedahay ay kugu fasaadinayso adiga ay suxba ku tareenin sidaa darteed qofku ugu muhiimsan dhinaca wala markaad ka eegtid waa gabadha diinta leh quruxda leh dadkeeduna qurxan yihiin dhaqaalana haysata haddaa isku hesho hadda farasa kula cararcidna ha u sheegin haddaad weydo saddexdooda kala raadi maalka xagga dhig saddexdan kale raadi weliba diinta iyo nasabka raadi gabadh diin leh dad fiican ay dhaleen raadi haddaad weydo quruxda qalbiga iska jecel ku aqof laakiin mar walba diintu kow ha ku noqoto waxaan filayaa inaan idin soo kooway waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee rasuulku calaysalaam loogu saleeyay doorashada gabdhaha iyo qoyska Soomaaliyeed